Sokeeye walaalow Soomaalinimadeeni weli waa sideedii. Maanta waxaan halkan ku hayaa Arduino Uno anigoo ku cabiraya heerkulka guriga. Sidaan ujeedina waxaan isticmaalaynaa LCD Liquid Crystal Display. LCD-ga waxay soo bandhigaysaa heerkulkii ama cabirkii ee Arduino-ga oo noo cabiray heerkulka guriga dhexdiisa ah. maanta xoogaa cimilada qabow waaye Helsinki Finland sidaan ujeedin xoogaa waa cloudy dabaylo ayaa jira xoogaa roobna u da'aya marka sidaas darteed cimilada xoogaa qabow waaye maanta. waxaan halka ku haysanaa koodka sida ogtihiin xoogaa wuu iska sahlan yahay faham ayuu u baahan yahay kaliya cidda xiisaynayso koodkan description-ka hoos ayaan kusoo qori doonaa. hoos ayaa ka qaadan kartiin ka koobiyeysan kartiin. qaab ahaantii maanta halkan waxaan jeclaan lahaa inaan aad xoogaa wax yar uga taataabto qaabkan conversion-ka loo sameeyey iyo qaacidadan meesha ay ka timid. tusaale ahaan waxyaaba aad noogu cusub waxaa kamid ah qaacidadan oo ah hal loo qaybiyey tan loo qaybiyey kan loo qaybiyey lagu daray productiga xisaabtan. qaacidadan waxaa la dhahaa Steinhart equation. faahfaahin dheeraad waxaa ka heli kartaa YouTube-ka ama Wikipedia-da ama Google-ka of course. waa raadin kartaa Steinhart equation ayaad ku qoraysaa Google-ka kadibna asaa ku siinaya information badan. halkan sidaa ujeedinba waxaan isticmaalnay raw ADC analog digital converter. temperature-kii ayaan Kelvin u bedelnay. Kelvin-kii ayaan haddana waxaan u bedelnay Celsius. haddii marka aad doonaysid inaad Celsius kasii bedeshid oo Fahrenheit u bedeshid sida dadka America degan oo kaleeto commentigan ayaa ka bixinaysaa temp. markaas waxay noqonaysaa temperature-kii oo lagu dhuftay 9 loo qaybiyey 9 loo qaybiyey 5 oo lagu daray 32. waa sidaa u taqaaneen conversion-ka markii la sameynayo Celsius to Fahrenheit. laakiin ani hadda ma isticmaalayo comment ayaan iska saaray / markaas macnaha function-ka ma ii shaqeynayo. waxaan dhahnay LED pin wuxuu iigu xiran yahay 13 pin 13aad ee Arduino-ga. xad waxaan samaystay 27 macnaha degree marka 27 marayo haddii tusaale ahaan 27 uu ka bato inaan dhaho LED shit light shit ama wax kale sameeyo. sida ujeedinba analog temperature-kii la cabiray value-ga la geliyay heerkulka waa aan ku qornay LCD print heerkulku waa temperature. waxaan kaloo isticmaalnay haddii temperature-ka uu ka weyn yahay xadkaas oo ahaa 27 annaga aan hore ugu dhigano 27. haddii temperature-ka xad ka weyn yahay xadkan waa 27 digital right pin 13 pin 13aad high ka dhig ayaan dhahnay macnaha shid. haddii kale uu ka yar yahay macnaha xad uu ka yar yahay temperature-ka digital right pin 13 low pin 13 macnaha eber ka dhig oo macnaha shidan ayaan dhahnay. marka koodka sidaas ayuu u shaqeynaya. haddii marka tusaale ahaan temperature-ka wax noo cabirayo waa baashan NTC la dhahaa. NTC-gan waa 10 kilo ohm. waxaan kaloo isticmaalayaa 10 kilo ohm oo kaleeto si aan voltage divider uga dhigo oo aan u helo voltage-ka dhex maraya macnaha isku darkooda macnaha labadan voltage-ka macnaha dhex maraya tan soo dhex maraya si aan ku helo haddii voltage-kaas aan macnaha u bedelo heerkul ahaan loogu bedelo. marka haddii tusaale ahaan LED-gan hadda uu dansan yahay maxaa yeelay temperature-ka waa 20. haddii aan temperature-ka siyaadiyo oo gacanteeda ku qabto
macnaha sidaan oo kaleeto temperature-ku siyaadaya markuu 27 gaaro waxaa dhici doona waxaa ishidaya LED-gaas aan aragno 27 horta gaarsiin karaa kuleelkeyga ma hubo 27 imaa labaatan iyo lix wish inaan 27 gaaraya come on waxaa malaynayaa shii ugu dambeysa maraya boom waa gaaray larkiina waa shidmay LED sida ujeedin oo dameysa 37 waxaa jooga boom marka meesha hadda LED-ga aan uga xirnay waxaan ku xiran karnaa marwaxad oo kaleeto ama air conditioner markii 27 heerku gaaro signalkii ayuu Arduino diraya sida ledkan uu shidayo kaleeto signalku markuu diro oo meesha ledkan uu ku shidmi lahaa air conditioner aan ku xiranaa air conditioner-ka ayaa noo shidmaya sidaas ayaa temperature-ka diro aan ku hayn karnaa 27 ka yar intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin daawateen si wacan wixii su-aalahan way soo weydiin kartiin commentiska hoose ayaa kusoo qori doontiin khayr badan ayaan rajeynaya bye